انتي وابرقاوة muddo ayay qaadatay hirgelinta farsamadan casriga ah oo maanta mirdhalkoodu noqday mooto casri ah in laga soo saaro. cabdirasaaq ibraahim maxamed waa macalinka farsamadan ku guuleystay wuxuuna meesha ka saarayaa in waqti la geliyo in dibadda wax laga soo iibsado iyadoo laga faa'iideysan karo maskaxda iyo aqoonta dadka Soomaaliyeed ee wax bartay beddelkeedana la hindisayo farsamooyin noocan ah. mootadan waxa lagu farsameeyay wadanka waxay qaadatay waqti badan iyo maskax badan oo la shiilay marka insha Allah waa sida hadda aad u jeedina quality-geeda waxa looga fikirayo waqti aad u dheer saacadan soo waqtigan soo gaartay oo Ilaahay uu fududeeyay waxayna nagu qaadatay adiga ugu yaraan 2 sano waqtigaas dheer oo hadda galana waxay ku gashay oo ku qaadatay quality-ga sida aan uga fikirayeen hadba biraha loo isticmaalayo iyo dadka hadhow inay isticmaalaan u baahan si ay maaragtay ay non ay cilada iyo wax cilada ayna ka sheeganin waa arkaysin hadda mootada qaabkeeda xoog hadii liirana waa diyaarsan tahay hadii bacad liirana waa diyaarsan tahay motorkana waa ka diyaarsan tahay bodigana waa arkaysin oo ka diyaarsan tahay daawadayaal waxaan saaranahay mootada oo farsameeyay darawalkan hadda mootada noo wada oo ah nin makaaniga lagu magacaabo Cabdirasaaq waa mootadii ugu horeysay oo lagu sameeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waana mooto ka duwan dhammaan mootooyinka yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho ma galayso bacaad sidoo kale waa ay ka orod badan tahay ama ka xawaara sareysa mootooyin kale ee yaala dalka. hirgelinta mootadan casriga ayaa noqonaysa mid loo adeegsan karo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhulka baadiye ah waxayna leedahay ridooto bacaadka ka saareysa. mootadan bacaadkeeda bacad maridaadkeeda waa sida darkiisiin waxay leedahay leebel loogu talagalay oo dhiifa mooto waxay leedahay leebel loogu talagalay oo dhiif oo maaragtay bacaadka awood u yeelaysa markii aad bacaadka ka saartay meel ka adeega aad tagtana waa caadigeed uga saaraysa sida gaadiidka kale waana caadigeed u isticmaali kartaa bacaad hadii aad u baahato waa u isticmaali kartaa hadii aad laami u baahatana waa u isticmaali kartaa rakaab ahaan hadii la yiraahdo dadka family-gana waa qaadi kartaa hadii la yiraahdo BL-na waa loo isticmaali karaa oo magaalada dhexdeeda waa lagu isticmaali karaa adiga 8 qofood ay qaadee oo waasaco si nadiif ah u fadhiisaysa dadkii kale oo inay isciriirsadaan rabaanna waa u furantaa waa u banaantaa wax kasta waxay u baahan yihiin hirgelintooda fikir isku tagay ee dhaqaale balse tan waxay meesha ka saareysaa mootooyinka bajaajta ee dibadda laga keeni jiray. horta mootadan fikir ahaan waxay ku timid maadaama wadankan ay yimaadeen mootooyin tiro badan oo looga baxo wadankeena uga baxo dollar aad u fara badan oo wadanka ka baxa isla markaasna tay ahaan aanan fiicnayn oo mar walba ayagoo halaabay ama qashin noqday ama hal shil intay galeen buusbuusmay ay xaafadaheena iyo agteeda yaaleen qaasatan gurigeyga 6 xabo oo buubuusana oo la jirtay qashin saa'id ah ay nagu keentay gurigeyga agtiisa oo la jirtay waa fikiray waxa isla waraxaan sidee looga bixi karaa lacagna noogu baaqan kartaa taasaan fikir ahaan ninkan farsamayaqaanka ah oo dariskeena ah oo baabuurka ii sameyn jiray ayaan ula imid muddo 2 sano ah ayaan isku raadinaynay qalabka ay u baahan tahay iyo technology ahaan waxyaabaha ay u baahan tahay sida loo sameyn karo iyo sida looga hortagi karo in oo sanad walba ama 2 sano walba mooto cusub dadka ay gataan laakiin ay 5 sano ilaa 10 sano mooto ay wada karaan si loo sameeyo ayaan ku fikiraynay marka sidaas darteed waxaan isla fiirnay biraheeda maxaa laga sameeyay koronto ahaan sidee safe u ahaan magaalada biyo iyo waxba degdega sidee uga badbaaday hadii biyo dhex marto dhulka bacaad waaye ma wada dhisnaa sidee ugu noolaan kartaa marka sidaas darteed waa mooto loo dhameystiray technique ahaan waxyaabaha ay u baahan tahay inay bacaad ku socoto biyo ku socoto basiin ahaan wax yar ay isticmaasho oo aad u yar iyo inay cimri lahaataba oo waqti dheer ay noolaato mooto laga dhameystiray waaye. Abuukar Maxamed Xasan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wuxuuna sheegay inay farxad gelinayso qof kasta oo hal abuur sameeysa isla markaana dalka wax ku soo korinaysa xilligan. wallahi farxadayna lama soo koobi karo in injineer Soomaaliyeed
haddana meesha ay tahay magaalada muqdisho productigan alaabtan waxaa laga keeni jiray yani maxaa la yiraahdaa dalka dibadiisa in wadankii lagu sameeyo waxay noo tahay maxaa la yiraahdaa farxad aad weyn noo tahay darawalada mootooyinka bajaajta kaxaya qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in la asiin farsamooyinkan casriga ah ee muqdisho dhexdeeda xilliga lagu onkay insha Allah haddii awoodii gaarto yoom hada inaan gataan jeclaalahay saan ugu faraxsanahay oo tayada ay leedahay xagga qawadeera iyo spaceka ay leedahay iyo shay iqan cusaba waasacnimadeeda maxaa yeelay wadan waxaan joognaa u baahan wax kasto dadaal ah horumara hal-abuur kasta oo hirgala waxa uu u baahan yahay waqti iyo maskax waxaana tan ay dhiirigelinaysaa qof kasta oo xilligan hal-abuur leh maxamed xuseen RTN muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus